والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku salaamayaa golaha sharafta leh, salaadiinta iyo culimada iyo jiif caaqilada iyo ganacsatada iyo odayaasha iyo dhalinyarta iyo aqoon-yahanka iyo madaxda kale iyo waxgaradka joogaba. salaanta ducada xambaarsan ayaan idinku salaamayaa. ilaahayna waxaan loo weydiinayaa ilaahay camalkeennan aynu isugu nimi, arrinkeennan aynu isugu nimi, inuu ilaahay ka dhigo mid khaalisa oo isaga dartii loola jeedo oo ilaahay uu naga aqbalo. waxaynu kaloo ilaahay weydiisanaynaa ilaahay inuu naga qaado abaarta iyo mashaakilka iyo culayskayna saaran, oo ilaahay raxmad degdega ilaahay subxaana wa tacaala inoo shubo. wixii xanuunsanayana ilaahay inoo shaafiyo. allahuma salli calaa muxamed. sida la soo sheegay, dulucdu shirkani waxa weeye arrintaa ribada ee la soo dhigay baarlamanka, in aynu naseexo ka jeedinno oo ah balaayo culus ama masiibo culus oo qarankan soo waajahday. su-aalo badan baa jira oo isweydiin leh. ribo maxaa inoo keenay? ma u baahanay inagu ribo? ma u baahnayn? duruuf inagu kaliftay inaynu ribo gallaa ma jirtaa? waxaas oo dhammi waa su-aala isweydiin low. xilliga dadka uu baktiga ku jiro ee u baahan yahay in la ururiyo, ee aynu u baahan nahay inaynu toobad keenno, inaynu ilaahay nidhaahno waa la dagaalamaynaa, meesha ma qabata? waa mayu. ilaahay subxaanahu wa tacaala laba shay oo qura buu dadka dagaal ogeysiiyey haddii uu qofku ku kaco. mid waxa weeye qof mu'mina oo ilaahay leeyahay oo aad ku gardarooto dulmiyayso oo aad la colaytanto. ilaahay wuxuu yidhi xadiisulquds, man caadaa lii waliyan faqad aabantuhu bilxarb. qof mu'mina oo weli oo anigoo aan leeyahay cidda iyadoo waxba ku lahayn la colaytanta ee dhibta, dagaal baan ogeysiiyey. dagaalka kale ilaahay qur-aanka ku sheegay ee dad uu ilaahay sheegay waxa weeye waa ka ribada. ilaahay wuxuu yidhi haddaydaan ka tegayn oo aydaan ribada ka tegin, fa'banuu bixarbin min allaahi wa rasuulih. waxa ku bushaaraysata, waxa ogaataan dagaal ilaahay idinkaga iman doono, dagaal ilaahay idinla dagaalamo iyo rasuulkiisu ogaada. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo sawiraya dembigaasi intuu leegyahay baa wuxuu yidhi ribadu waa 7 baab. ka ugu dembi yari waa ninku inuu hooyadii ka sinaysto. maxaa waxaasoo culaysayna geliyey? waa fitanka iyo duruufaha jira ee sabanku wato weeye. marka sidaas darteed, maadaama arrinku ahmiyadda intaa leeg leeyahay, inaynu wax ka nidhaahnaa waa waajib, diintuna ina farayso, caqliga iyo maslaxadda iyo danta ummadduna ina farayso. sidaas darteed, marka ugu horraysa qodobka isaga ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay meel cad buu dhigay. waxarama ribaa buu ilaahay taxriim. ilaahay waa xaraami. ummaddii islaamka culimmada ahayd waa isku waafaqeen, meel buu yaallaa, waa xaaraan. mar labaadka, halkaa isagoo diinteennu iyo kitaabkeennu ka taagan yahay, distoorkeennu wuxuu qorayaa qodobka 5 faqrada 2, xeer kasta oo shareecada islaamka ka soo horjeeda inuu ka kac yahay oo aanu jirin. saas darteed, aragtida aan anigu qabaa waxa weeye duulaanku
in bunuugta ribadoo qura la furo maaha laakiin waa in dastuurka Somaliland ee islaamka sheegaya la dumiyo wey in ajandaa lagu daraana waa xaaraan wey sharcigana waa ku xaaraan dastuurkana waa ku xaaraan ajandaa in lagu daro waa khaayinimo ummadda la khiyaanayo saas darteed kelmado kooban baan odhanaya mar haddii halka ilaahay soo gaadho cid loo joojinayaa ma jirto waa se naseexo ninkii ilaahay ku anfacana ilaahay uu ku anfici doonaa ninkii ilaahay aanu khayr la maaginina dacal buu ka dhaafi doonaa annaguse waajibkayagaanu iska ridi doonaa kelmadda koowaad waxaan u jeedinayaa qoliyaha golaha waxaan leeyahay ummaddiinni baa idin sharaftay waa la idin doortay maslaxaddooda iyo dantooda inay ilaalisaan bay idin dooratay waa la idin dhaariyey oo ilaahay kitaabkiisa ayaa la idinku dhaariyey dad muslima baa tihiin oo diin leh sidii oo aanu idinku ogeyn halka ay ka tahay waxarama riba ilaahay ka yidhi haddaa codkiina ku tidhaahaan waa xalaalaynay waxa ku saacaddaa isla markaa ayaa diinta ka baxdeen waa waxay culimmada islaamku sheegeen oo in wax la taxliiliyo iyo wax la taxriimiyo lagu gaaloobayaa kitaabka ilaahay ku cad saacaddaas baa dumarku idinka furan yahay saacaddaas baana cidiidin qofka ay isxigtaan aydaan isdhaxlayn saacadda ayaa jagadaad hayso ka casilantay marka sharciga maadaama aad dad muslima ka wakiilahay saacaddaasaa nin kasta uu casilan yahay oo aanu baarlaman ahayn haddii sharciga lagu fuliyo oo aanu cidna ka wakiilhayn waxaan iyaga leeyahay qoliyaha arrinka dabada ka riixaya idinkama maaranno oo laydinkama maarmee war ha gaaloobina ee diinta u soo noqda kana toobadkeena bahalka ajendaa gelisee ha una codaynina nebigu nacas buu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis baa nacas soo arooray ileen diintuba nacaska waa sheegtaa nebigu wuxuu nacasku waxa weeye man yabiicu diinahu bidunyaa kayrihi qofka diintiisa ku iibinaya inay hagaagto adduunyo qof kale leeyahay maxaa inoo keenay bunuugta yuhuudda iyo ribada ya waxaan leeyahay gurigu waa balaayo marar badan dadka dhul badan jiirsiiyaaye intaa khasaaraysaan iyo intaa faa'iidaysaan isu qiyaas qodobka kelmaddaas ayaan ku dhaafaya ilaahayna waxaan idin weydiinaya ilaahay inuu tawfiiqda idinku soo toosiyo oo ilaahay idin soo hanuuniyo waxaan kaloo hambaliyo u dirayaa oo aan u ducaynayaa ilaahay jannaatulfardows inuu geliyo oo taariikhdu ay baal dahaba ku qori doontaa siday kuwaasna baal dulliya baal madow ugu qori doonto hadday u codeeyaan ribada raggii ka soo horjeestay waar joojiya leh war diinta yaan la jiidhin leh aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waajibkoodii bay ka soo baxeen kelmadda kale waxaan u jeedinayaa xisbiyada baarlamanku waa xubno qolo waliba xisbiyada golayaashooda ay golo dhexe ka yihin oo golayaal ka siiyiin oo madax ka yihin xisbiyadu dadkaa dee loo dhistay oo madaxnimaa lagu doonayaa waa weel oo cod baa lagu doonaya waxaan leeyahay nin walba halkaa mawqifka uu iska taago yuunbuu masiirkiisu noqon doona niga waxaana ku talinayaa ha laga xubnihiinna qolo waliba xubnihiinna ka hawlgalo ragga xubnaha idiina ee baarlamanka ah ka hawlgala waajib baana idinka saaran joojinta mashruuca ribowiga
الدخيل كان وطني قاهين واجب هذا كسر إلهي ضدكم أنا وسير الله عملكم والمؤمنون يا ضدك مؤمنين تشوفوا غير سومالي الله أو حقربتان يا إلهي بنا ويدنار كدونا وحقبتان يوحى يشان ونار كدونا تاسنا كلمة سكودا في كلمة صدحات عانوا جدني يا دولة شرع الإسلام كا دي waxa ogtihiin in iyo de sharci kasta madaxnimada waxa ugu sarreeyay diyaalka madaxtooyada wax kasta sharciga xigmad bay ku dhisan yihiin salaaxiyaad iyo awoodana waaleeyay sharciga islaamka markay culimadu ka waramayaan waxa la yiraahdo al-khilaafa madaxnimada madaxweynanimada maxaa loo sameeyaa maxaa looga jeedaa laba wax baa loo sameeyaa laba wax ninka madaxweynaha ahina ummadda wakiil buu ka yahay si uu u ilaaliyo masaalixdeed diinteedana wow labada wax waa maxay waxa weeyaan al-khilaafatu khilaafadu waxa weeyaan waxa loo sameeyay xifdu diin wa siyaasatu dunya bi waa laba qodob xifdu diin diinta horeysa oo madaxweynuhu ka mas'uul in diinta la ilaaliyo in diinta la ilaaliyo waxa la soo galisay in ahkaamteeda loo in dadka lagu xukumo in dadka la baro waxa soo dhan baa soo galiyo qodob aan la tirin karayn qodobka ku xiga ee madaxweynenimo looga baahan yahay waxa weeye diinta iyada ah in siyaasadda ummadda nolosha ummadda in lagu maamulo xifdu diin wa siyaasatu dunya bihi saastarteed sharci ahaan mas'uuliyadda ummaddu diinteeda iyo masaalixdeedaba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo cidii uu dirtayna nin walba hawsha inta loo diray ayaa saaran inuu fuliyo oo siday tahay amaan ahaan uga soo baxo saas darteed waxaan u jeedinayaa madaxweynaha kelmad waxaan leeyahay madaxweyne taariikhdaadii hore waa taariikh fiican bay taariikhdaada dambe imika inta aad madaxda noqotayna wax badan baad qabatay oo dadkaagu ay markaa la dhaceen ama ay kuugu hambalyeeyeen imikana waxay maraysaa weli dee madaxnimadii adiga ayaa jooga dadkaagu waa ku jecel yahay oo waa ku doortay ragaad la tartamaysay buu kaa doortay waa kula shaqeeyey rag baa laga yaabaa 20 sanadood oo dhowdhow inay markaa kula halgamayeen waxaan leeyahay madaxweyne iska ilaali mashruuca magacaaga in lagu gubo مشروعه ومشروع إنكارت قبائل ربضة إلهي رسولك سبك سهور جيدة الدين تكسهور جيدة إنه لا شيء أمده كسهور جيدة ما قعاقة يان لقو هوسبرين إنه لقو قبين وحلايا ماذا حويني هذا لقا قبا هينا تشوكسو هذا أمده ما وبعنتما هذا واجبك waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad joojiso mashruuca laga saxbiyo baarlamanka yaanu ka codsanaynaa waxaan ku darayaa oo aan madaxweyne aad iyo aad u adkaynaya mashruucaas ciddii ku lug yeelata aakhiradoodu kharibaya uu saameynaya taariikhdoodana waa dilaya إلهي وحن كرجينيا المشروعاس إن إلهي كوكولا يو هذا كنا هذا كنت تو وحن كلو شيء وأنا شيء وحبان أقول مكلا ريبو مركي دين تسوق قاعدو عيد أن وحسنا هاي مجد وأن دين تيهل كده هاي
haddii mashruucaa sidaa lagu socodsiiyo oo distoorka sidaa qodobkaa lagu dhaafo waxay noqon doontaa wax badan oo xisaabaad oo horoo la isla ogaa baa dib loo raajici doonaa nin waliba meeshuu dan moodo ee diintiisa iyo dantiisa ku jirto u guuri doonaa nin walowba ku tasho wasalaamu calaykum waraxmat ullah.